al-shabaab ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwa al-shabaab iska diiwaan geliyay odayaasha oo la sheegay inay toobad keeneen ayaa ka tagay deegaanada ay ka arimiyaan maamulada Hirshabelle iyo Galmudug waxayna gaareen gobolada shabaabka ay maamulaan kulamo u dhaxeeyay mas'uuliyiinta al-shabaab iyo odayaasha ayaa ka dhacay degmada Bu'a Qable ee gobolka Hiiraan waxaana halkaasi ka cadeeyay inay ka toobad keeneen soo xulista xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa ka qayb galay kulanka ka dhacay degmada Bu'a Qable ee gobolka Hiiraan mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa kala ah Sheekh Yuusuf Kaba Kutukado oo ah gudoomiyaha al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Guuleed Abu Nabhan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee al-shabaab Sheekh Abu Cadnaan gudoomiyaha al-shabaab ee gobolka Mudug al-shabaab waxa ay sheegeen inay cafis u fidiyeen odayaasha soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabelle waxa ka yimid 53 oday halka maamulka Galmudug ay ka yimaadeen 33 oday dhaqameed oo dhamaan sheegay inay ka toobad keeneen soo xulista xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxayna sheegeen in marka ay ku laabtaan deegaanada ay ka yimaadeen ee dadka shacabka ay ku baraarujin doonaan ku dhaqanka shariicada islaamka